Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya ayaa maanta oo xad ah xukun xabsi ah waxa ay ku riday Muuse Maxamed Axmed oo loo haysto in uu ka tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab. Muuse ayaa maxkamadeyntiisu waxa ay soo martay heerar kala duwan waxaana lagu eedeeyay inuu ururka Al-Shabaab u farsameyn jiray qaraxyada sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Qoraalka maxkamadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in Muuse Maxamed Axmed oo wata walxaha qarxa sanadkii hore 2019 lagu qabtay gudaha degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose xilligaas oo sida la sheegay uu ka yimid deegaanka Janaale ee isla gobolka Shabeellaha Hoose. Inta ay socotay dooda Gaashaanle Muumin Xuseen Cabdullaahi oo ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ah ee ciidamada qalabka sida ayaa u sheegay garsoorayaasha in eedeysanaha uu isticmaalay dhagar aan laga maleysan karin isagoo isku dhex milay raashin dareere ah iyo walxaha qarxa sida uu ugu geliyo gudaha degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute oo ku dhawaaqay xukunka maxkamadda ayaa sheegay in Muuse Maxamed Axmed lagu xukumay 10 sano oo xabsi ciidan ah. Sidoo kale gudoomiye Shuute ayaa sheegay in maxkamaddu uu u haysto eedeysanahan la xukumay fursad kale oo xukunka ugu qaadan karo racfaan taas oo ku eg 30 cisho gudahooda.